الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكل كني صدحات وكمذا برنامج كسؤالها بشر رمضان بركيسا. وحا عين كبر عبدنا سائل كان واشيء مجيسة يباش وكسو قريتون وحليه هي ولا شيء أو جريوتي يضل يقول لي هي أفر رمضان ما كبحين كراراشين ما دام أو أنا سومي كرين. سائل كلا بعد حليه هي كفارة ذا أما صون ككفارة جد كأه يقف كل ما دمر كل شيء وكدارته وديب وقول لابته ما كوبيجي كرام مالمها السنة ضايل الصومه سدا سنين تا خميس تا مالمها لميتكا. سائل كصدحات وحليه مقعيقو ومحمد خليفة وشوقا مقالة الأسعانود. سؤال شيء دو حوي بوليه رمضان تا عصر ككذب ملقو عضيان كرا دودة إلكها كل جيدا. سائل كأفراد بويديها أفراد حليه هاي وعمر وشوقا قريولي شخصون أيا إيجتهجي رمضان maalmihii iga tagayna ma garanayo marka maxay la gudboonaa sameeyo. Su'aasha shanaad wuxuu leeyahay saalka soo qoray magacaygu waa Jamaal oo jooga magaalada Hargeysa. Wuxuu leeyahay Sheekh bisha Ramadaan labada aadaan dhexdooda haddii aan u baahdo inaan xaaskeyga u tago kadibna aniga hawshii ku jira la igu aadimo maxaa ila gudboon inaan sameeyo. Fadlan Sheekh. Alhamdulillah wa usallimu ala nabiyhi al-karim محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قالها بشهر رمضان لقول لي هاي ولا شعر سدا سؤال كسو ويديسي وحراشنا لقما بحين كرارت كل هدي قف كان آنو هين dadkii raashinka laga bixinayay ee ama gaboobay ama cudurkiisu aanu ahayn cudur aan laga bogsanayn qof qalayn karayay iyadoo qalal lagu leeyay markuu dhinto raashin lagama bixiyo arinta ama ka soomi karaa qallaha lagu lahaa qofkan haddii uu cibaado uu la iman karayay adaageeda waqtigeeda la iman karayay ama qalayn karayay haddii ay ka gaabisay hawaad ka soo qalayn laakiin haddaanu qofkani waqtigii ramadaan uu soomi lahaa uu bukay waqtigu qalayn lahaana uu bukay waxba kama soo qalaynaysi oo soomaad ka soomaysaa ma jiro. markuu qofku cibaadada ka gaabiyo ee dadaal uu kari karayo uu la iman waayo baa laga qaleeyaa. su-aashiisa kale waxay soomkan kafaara gudka ma ku beegi karayaa maalmaha isniinta khamiista waad ku beegi karaysaa laakiin isma dhex kala soomkii faralka ahaa unbuu ku noqonayaa soomka ayaamaha aada soontay. soomka sunnaha ee khamiista iyo isniinta la soomo iyo kan isma dhex galayaan sida qowlka raajixa. sidaa daraaddeed soomka ayaamaha aada soontay kii kafaara gudka unbuu ku noqonayaa. su-aasha saddexaad koolgeyda ama dhiiqada ilkaha ma ku cadayan karaa iyadoo aan soomanahay? waad ku cadayan kartaa laakiin waa inaad muudka iska dhammayso oo dheecaankan iyo muudkan iyo dhadhankani haddaad liqdo wuu jebinayaa soomkii. marka haddaad awood u leedahay inaad iska dhammayso wax dhiba ma laha. haddii laakiin muudkii afkaaga ka buuxo aada liqayso waa kaa jebinayaa soomkiiyo iska dah. su-aasha afraad waxay mana garanayo cadadkii laygu lahaa qalana waa laygu leeyahy tiradu ahaana ma garanayo. jawaabteedu waxa weeye ta'khud alaxwad lilcibaada cibaadada sida u dadaalka badan ee bilaa shakigaa baad qaadanaysa. matala haddaad is leedahay waxaa lagugu leeyay 20 cisho ma 20 baa mise waa 15 tirada aada hubtee 20 baad qaadanaysa. siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda markuu qofku shakiyo inta ragcadood uu tukaday ta yaqiintaa inuu qaadanayaa buu inoo sheegay. soomkiina waa la mid marka tirada dheer baad qaadanaysa oo 20 ah sidaasaanaad ku soo qalaynaysaa insha allah. su-aasha shanaad ee odhanaysay
haddii anigiiyo ehelkii ama xaaskiio kulansan adaankii dambe lagu dhufto maxaan yeelayaa halkaasaad ku joojinaysa waa cunadii waa galmadii waa wax kastoo kuu xalaalahaa habeenkii mar haddii la adaamo adaankaasina uu ku beegan yahay waktigii waagu bariyey halkaasaad ku joojinaysa wallahu aclam sheekh ilaahay ku barakeeyo wuxuu leeyahy saa'ilkani magacaygu waa maxamed maxamuud su-aasheedu waxay tahay buu leeyahy saambuusaha laga sameeyo hilibgeelka ee la shiiday saambuusaha yani hilibgeelka lagu daro saambuusaha amaba duqadiyo wax lamida lagu darsado ma jebinayaa soonkii waxaan leeyahay weysadii ma jebinayaa su-aasha labaad saa'ilka soo qora wuxuu leeyahy cabdiraxmaan oo jooga magaalada laascaanood wuxuu leeyahy sheekh waxaan rabaa inaan sadaqa bixiyo lacag aan ku bixiyana ma haysto qofka ama usoo amaahan kara aan doonaya inaan wax siiyo si aan hadhow isaga gudo amaataas su-aasha saddexaad wuxuu leeyahy saa'ilka soo qoray waa guuleed oo jooga qurbaha wuxuu leeyahy sheekh haddii aan guriga ku tukado anigoo ka cabsanaya haddii aan dibadda u baxo inay indhahaygu ku dhacaan dad qaaqaawan macaasi ka carar daraaddeed guriga ma ugu tukan karaa su-aasha xigta wuxuu leeyahy saa'ilka soo qoray haddii aan qof lacag ka cuno isla markaana aan odhan kari waayo isaamax miyaan lacagtaa sadaqo ugu bixin karaa su-aasha shanaad ee qeybta ugu dambaysa wuxuu leeyahy saa'ilka soo qoray haddii ruuxii dumarka ah ay caadadii hesho 10ka dambe bisha ramadaan isla markaana ay rabto inay ka faa'iidaysato leylatulqadrigii iyo habeenadii khayrka badnaa maxay yeelaysaa ama sidee bay uga faa'iidaysan kartaa fadal sheekh maxamed saambuusaha waxaynu arkaynaa inaanu hilib geel noqonaynin ama lagu sheegaynin waayo magaciisa hilib geel lama idhaahdo magacayo musami waa isxambaara way wada socdaa saambuusa la idhaha sanad walbana su-aashaas way soo noqotaa saambuusahaas wax dhiba ma leh loona tixgelin maayo hilib geel inuu yahay culimada fuqahadu waxay ka warramayaan beerka geela iyo inaan lagu tirinaynin inuu yahayba hilib geel waxaan magaca laxmuljazuur sita ayaa lagu xisaabtamaya su-aasha kale ama usoo amaahan karaa si aan sadaqo u bixiyo maya uma soo amaahanaysid sadaqo waxaa la bixiyaa wixii adiga ku dheer ama aan kalifiyo kadeed kugu ahayn alcaf ilaahay markii dadka su-aale ay ka timi wuxuu waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquun qul ilcaf maxaanu bixinaa bay odhanayaan waxaad ku tiraa inta idin dheer bixiya masaariiftaada dheer daynna hadalkeedaba dah sideedabana waa inaad ogaataa dayntu inay ka mid tahay musiibooyinka nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galay min almaqrami waalma'ham dembigii iyo daynta maxaa ku kalifayaa uma soo amaahanaysid su-aasha odhanaysa guriga ma ku tukan karaa anoo iska ilaalinaya gaal qaawan inaan dabadda ku arko dee waddankii gaalada haddaad joogto kollayba sow gaal qaawan maa dhex joogin guriguun ku jiri maysidii lee dukaankaa tegi oo waad shaqo tegi oo waad arki dadka aad sheegaysay qaawan marka sidaada inaad uga soo guurto oo meel lagu asturan yahay aad timaado ayaa kula gudban haddaad saa u dadaalayso waad fiican tahay laakiin salaadii jamaceedii ka hadhi maysid gurigana ku tukan maysid hadduu kuu sahlan yahay masjid dhow oo aad tegi kartaa cawrada aad sheegaysana indhahaagaad ka qarsan doontaa intaad kari karto wixii aanad kari karaynina ilaahay kuu qaban maayo su-aashan kale waxay ahayd sidee baan ugu gudi karaa wixii uu igu lahaa qofkii aan wax ka qaatay ama wax ka xaday waxaad ugu gudi kartaa iska badheedho u dhiibo waxaad tiraa intaasi ana igu baxdae dee cafi haddii aad isleeda fitno ka weyn baa dhici doontana xoolihiisa ugu dhex dar isagoo aan ogeyn laakiin sadaqa uma bixin karaysid waxaan aad qaadatay oo dadkii lahaa joogo sadaqo kaagama baxayse waa lagugu leeyay cid ammaanadaa ciddii lahayd waa inaad gaadhsiiso cala alyadi maa akhadat xataa tuwaadiya nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xasanka ahaa gacan walba waxaa lagu leeyay wixii ay qaaday jeer ay iska bixinayso marka dadka waxaan aad ka qaadatay gaadhsii oo meel dhexay uu ka dhicin su-aashan dambe odhanaysa 10ka dambe haddii aan caadadii igu timaado waa ruux dumara sidee baan u cibaadaysanayaa dee soomkii iyo salaaddii iyo mooyaane dikrigii iyo cibaadooyinkii kaleo dhan waa ku bannaayin inaad wardigii badsato
inaad ilaahay barida subxaanahu wa tacaala wixii intaa laguu diiday mooye cibaadooyinkii kale o dhan baa kuu furan qofka dumarahee aan daahirka inay samayn karayso ducadu u badanta allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ducadaa uu nebigu baraya calayhi salaatu wasalaam caaisha iyo wardigii tasbiixdii istikfaartii adkaartaasoo dhan baad wadaysaa sadaqadii baad wadaysaa cilmigii baad dhegaysanaysaa dadkaad waaninaysaa waxaasoo khayra baad wadaysaa ad ku waafaqi doontaa in sha allahu leylat lqadriga wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekh maxamed wuxuu leeyahy saa'ilkan waa gabadh magaceeda ku sheegtay rasna cabdi oo joogta hargeysa waxay leedahay waxaa jira shirkado la baxa magacu ku jira magaca ilaahay sida guul allah iyo maansha allah waxay soo saaraan alaabu magacaasi ku qoran yahay hadhow marka alaabta la isticmaalana waxaa lagu ridaa qashinka arrinta maxay diinta islaamku ka qabtaa gabadhan iyaduna magaceeda waxay kusoo koobtay maryamo xasan oo joogta qurbaha waxaa ninkaygii baa igu furay 2 dalqadood intii aan ciddadii ku jiray baa wuxuu igu yidhi waan ku soo ceshaday marka uu sidaa lahaana cid muu makhraati gelin oo wuxuu anuun baa isogaan markaan ku soo ceshaday sidaas miyay wax ku saxmayaan su-aasha saddexaad waxay leedahay wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waa maxamuud oo jooga dalka jarmalka wuxuu leeyahay sheekh su-aasheedu waxay tahay haddii qofku dembiga khamriga ku dhaco kadibna uu ka toobad keeno aanu dib ugu laabanin miyuu soo gelayaa dadkii la yidhi khamriga jannada lagu sheegay cabi maayaan su-aasha afraad waa cabdicasiis mursal oo jooga gedo wuxuu leeyahy sheekh meherka shardi ma laga dhigi karaa tusaale ahaan haddii xaaskaygu tidhaahdo meherkaygu waa inaanad gabadh kale ila guursan shardigaasi sax ma yahay sheekh sidoo kale haddii aan ka baxo shardigii xaaskii ma iga furmaysaa su-aasha shanaad wuxuu leeyahay sheekha waxaan weydiinayaa waxaa jira masaajido 2 dabaq ka kooban oo aan isku furnayn meel daloosho oo dadkii dusha joogay imaamka iyo ma'muumiinta hoose ay kala socdaan aanay jirin salaadaasi sidaa ma ku ansaxaysaa sheekh maxamed magaca ilaahay waraaqaha uu ku qoray ama luqa carabiga ha ku qornaado ama luqadeennaba ha ku qornaadee laguma tuuri karo kudaafadda marka haddii aanay arrintaa kari karaynin inay ilaaliyaan magaca ilaahay shirkadaha magaca ilaahay ku qortay ciwaankooda ama magacooda waa inay ka daayaan oo aanay ku qorin ama waa inay ilaaliyaan ninkaygii baa wuxuu sheegay inuu isoo ceshaday ma aan ogeyn markhaatina ma jirin haddii isagu sidaa kuu sheegay isagiiyo allihii sharcigu waa tixgelinayaa soo ceshigiisa waxba shardi maaha inuu markhaati u sameeyo iyo inuu adiga ku ogeysiiyo midna waa xaqu leeyahay marka oridiisii haddii uu yihi waan soo ceshaday waa oribaad iyo xaas baad u noqonaysa waayo soo ceshiga shardigu ma aha ogeysiinta xaaska iyo markhaatiyadu labadaasi waa iska wanaagsan yihin waa sunno fiican laakiin waajib maaha khamriga haddii aan cabo aakhire ma ku cabayaa jannada horta ma hubtaa inaad janno geli jannada ilaahay gacantiisay ku jirtaa subxaanahu wa tacaala qofku hadduu janno helo wuu raaxaysan doonaa nicmo walba wuu heli marka maxay noqonaysaa haddaan jannada galo janno ilaahay raadso sabab ilaahay weydiiso sababtii jannada lagu geli lahaa iyo camalkii iyo cibaadadiina ku dadaal marka wixii aada helaysee barwaaqaana ha ka warwarin ninku hadduu xaaskiisa kula heshiiye markay isguursanayeen inaanu gabadh kale la guursanin madhabaha qaarkood waxay leeyihiin shardigaa inuu fuliyaa waajib maaha sida madhabta shaaficiyada oo kale waayo qur-aankaa u baneeyey mid ka badan inuu guursan karo shardigaasi qur-aanku khilaafsan yihi shardi kasta oo daliilka khilaafaana waa baadil buu nebigu uhi 100 shardiba ha ahaado madhabaha qaarkoodna qiil bay u samaynayaanoo waxay leeyihiin shardigaasi ku xisaabtan buu leeyahay marka labadii mid waliba qiil buu haystaa oo dee qolana waxay leeyihin waa la tixgelinaya qolana lama tixgelinayo almuhim waxba ha iska lifin wix ilaahay kuu xalaaleeyeyna ha xaaraantinimeynine marka horeba shuruuddaa iyo adadaygaa guurka laga daayo su-aasha odhanaysa dabaqa sare haddaan ku tukado salaaddii ma iga ansaxaysa way kaa ansaxaysaa haddii jamaca aada arkayso ama codka maqlayso waad ku xidhan kartaa macnaha laakiin imaamkii aada ku xidhnayd haddii aanad codkiisana maqlayn meel hoosood ka arkaysaana aanay jirin ma suuroobayso ku dayashadii iyo la socodkii nebiguna wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxa loo sameeyey si loogu daydo de waa in labadaa miduun aada ugu dayataa maqal
ama muuqaal labadii midnaba haddaanu jirin la socodkii ma suuroobayo inta badan waa la dalooliyaa masaajidada halka ku toosan imaamka haddii masaajidkaasi aanu lahayn waa in markaa sameecaddii la maqlaya haddii sameecaddu goodo qof waliba waa inuu gaarkiisa u tukado wallahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala sheekha barakeeyo sheekh maxamed inta badan su-aalahani waxay naga soo gaadhaan dad meelaha ka soo qoray ama dibadda ha joogaan ama gobollada lakiin waxaanu maanta jaanis siin doonaa iyagana dadka masaajidka fadhiya oo si toosa su-aala sheekha u weydiin doona 5 qof aynu jaanis siin doonaa insha allahu tacaala ninkaasaa farta ugu hortaagay istaagi doona qofka su-aasha qofka ku soo dhawaada su-aashoo kooban noo sheega insha allahu tacaala araabtana ha soo yareeyo سائلك لبعض ولا اسرعنا تفضل يا وسؤال صدحات تفضل سؤال هو كل شخص كرو قلعتك سؤال أفراد تفضل واي تفضل سودو أذكر كرقات سألك أبو السلام عليكم كرقة haddaynu ku soo dhowaano su-aalaha su-aasha horeysa waxa weeye fidyadan laga bixinayo qofkii soomi kari waayey lacag ma lagu bixin karaa maya raashin baa lagu bixinaya raashinka idcaamu dacaam ama qof waa in la quudiyo oo habeenkii casho la siiyo la dhargiyo ama kiilo bariisa maalintii la bixiyo shakiga qofku uu shakisan yahay iyo xukunkiisu walaalkeenina weydiiyey shakigu waa nooc waswaas shaydaanka ka yimaada marka qofku waa inuu ku dadaalo inuu aada isaga naaro shaydaanka had iyo jeerna qalbigiisa soo xaadiriyo waxa shaydaanku uu sheegayana uu iska dhagatiro wardiga iyo isticaadada iyo ducooyinkana uu aada u badiyo isla markaana shaydaanka waa inaanu isu dhiibin waxa laga yaabaa hadduu isu dhiibo inuu usalli maanta mar yidhaahdo saa dambena ku celiyo 2 jeer maalinta kusii xigtana allahu akbar sidii tii ay u egaato ama ciidda ama saas oo kale markaa shakiga laysma dhiibee qofku waa inuu isku daya inuu iska jaro ilaahayna ka magan galo ilmaha yar soomkiisu waalidka wax ma u taraya wuu u taraya ha kol hadduu waalidku kula dadaalo ilmaha yar oo soomkii isagoo kari karaya uu faray waa u taraya wax ilmaha yarna kayd buu sii noqonaya accountkiisu uu sii galaya waalidkana waxbuu u taraya nabiga calayhi salaatu wasalaam ruux dumara ayaa sanadkii ummadda sagootiyaya xajkiisii weydiisa waxay tihi ale haada xajun yaa rasuula allah ilmaha yari xaj ma leeyahy haa buu ihi xaj buu leeyahy adiguna ajri baad leedahay marka cibaadooyinkan weli ilmaha yar ku waajibin marka waalidku kula dadaalo ilmahana ajrigu wuu sii dhigmayaa waalidkuna qaybtiisuu leeyahay qof dhintay kama gudaya soomkaas soomka ilmaha yari soomayo ee aan isaga waajib ku ahayn dadka waaweyn soomkooda unbaa dadka waaweyn baa ka qalaynaya ilmaha yar kama qalaynayo isagii waxba kuma waajibin fidyada kal hore lagu lahaa waalidka haddii ay dib dhacday ma qalayn karaa ha waad qalaynaysa shay kasta oo waajiba ma dhacayo fidyada kafaara gudka sekada xajka waxyaabahaasoo dham hadday dib dhacaan iyo dee nadarkiiba qofkii waa lagu leeyahay oo gashimo duugoobo gashiga ilaahay iyo ka addoommahaba qofkii waa lagu leeyahay markaa waa la qalaynaya oo la bixinaya ruux dumarahoo 2 bilood uur a leh dhiigga ay aragtay muxuu noqonayaa yuctabar annahu damu listixaada
waxaa loo tixgelinayaa dhiiggaasi inuu yahay dhiiggii dhabar furanka mar haddii muddadu sidaa u yar tahay ilmaha qubanaya way iska soomi waana iska salaadi cibaadadiina u joojin mayso wallahu aclam sheekh ilaahi subxaana wa tacaala inoo barakeeyo innagana cilmigiisa allah subxaana wa tacaala inagu anfaco aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu